doorashadan ka qabsoomasa Somaliland koy 30 May 2020 waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Horta maanta waxay ku beegan tahay maalin taariikhiya. Kadib waa markii Somaliland dastuurkeedii ay ansixisay ee ay u guurtay nidaamka dimuqraadiyadda oo ay ka guurtay nidaamkii la odhan jiray beelaha ama qabaayilka. doorashadan waxaan odhan karaa waa doorasho Somaliland lagu imtixaamayo dhinaca dimuqraadiyadda, dhinaca sinaanta bulshada, dhinaca cadaaladda iyo dhinaca dowladnimadeena kartideena inaynu qabsan karno wax. oo doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashadii hore. doorashadan dhaqaalaha ku baxaya waxa bixiyay xukuumadda uu garwadan ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. isbarbardhig yar haddaan ku samayno doorashooyinkii hore, in yar waxaad moodaa inay kala duwan yihiin dhinaca ka qaybgalka doorka ay haweenku ku leeyihiin doorashada inay soo baxaan ama ay tartanka ka qayb galaan. sidoo kale beelaha la habsooco beesha gabooye iyo sidoo kale dhalinyarada. dhinaca dimuqraadiyadda doorashadani ayagu waxaan odhan karnaa waa mid horta indhaha caalamka soo eegayo, oo waa mid aynu odhan karno san sheegayay imtixaan baa maanta layna marinayaa. imtixaankii dimuqraadiyadda, imtixaankii cadaaladda, imtixaankii sinaanshiyaha, imtixaankii isku filnaanshiyaha. doorashadan ay muhiim u tahay. doorashada maadaamay tahay doorashadii ugu horreysay aynu barjad xataa dibadda iyo deeq-bixiyaashii doorashada ka qayb qaadan jiray aynaan ugu soo raadin, oo ay tahay doorashadii koowaad ee inagu aynu barjadka ku baxaya xukuumadda Somaliland ay bixinayso. waxa weeye waa wax ilaahay la mahadiyo, waa horumar weyn, dimuqraadiyad ballaaran oo geeska Afrika oo dhan lagu faani karo ay maanta Somaliland gaadhay. dhinaca kale haddaad u fiirsato isbarbar dhigto Soomaaliya iyo Somaliland maanta, waxay muujinaysaa Somaliland bisaylka dimuqraadiyadeed ee u bislaatay in ay doorashooyin qabsan karto dimuqraadiya free and fair, sidoo kale nabadna ku dhaca. marka doorashadani waxaan odhan karaa markaan soo koobo waxay aad iyo aad kor ugu qaadaysaa kalsoonidii beesha caalamku ay ka qabtay Somaliland, waxaanay soo jiidanaysaa indhaha wadamo fara badan oo caalamka ka mid ah, hadday tahay Yurub, hadday tahay Carabta, iyo hadday tahay wadamo fara badan oo African Unionka ka tirsanba. marka waxaan qabaa doorashadan inay noqon doonto doorasho kalsoonida shacabkana soo celin doonta, sidoo kale kalsoonidii laga qabay Somaliland inay tahay dal dimuqraadiya oo waxa weeye doorashooyinkiisa iyo nidaamkiisa systemkiisu uu yahay system progressive ay soo noqonayso. marka aad iyo aad baan ugu kalsoonahay markaan aragtidayda ku eego xagga dimuqraadiyadda Somaliland isbedelka ku imaanaya doorashadan ka bacdi. aad iyo aad baad u mahadsantahay.